shirka degdega ah ee baarlamaanada adduunka qaybtiisa carabta ee ka furmay magaalada Amman ee dalka Jordan waxaana looga hadlayaa xiisada ka aloosan bariga dhexe. Wariyahayaga Ibraahim Gudle Isxaaq ayaa faafahinaya warkan. magaalada tan Amman ee caasimadda waddanka Jordan maanta waxaa ka dhacay shirkii soddonaad ee caadi ahayn oo isugu yimaadeen midowga baarlamaanada adduunka qaybtiisa carabta waxaana shirkan oo ay martigelisay dawladda tan Jordan looga hadlay xaaladda waddanka Falastiin. gudoomiyaasha baarlamaanada dalalka carabta ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay shirkan waxaana Soomaaliya shirkan ku matalay oo ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan iyo wafdiga hogaaminayo. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan ayaa shirka ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlayay xaaladda dalka Falastiin carabta iyo guud ahaan islaamka. تمر قضية الفلسطينية بمنعطف خطير جراء استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد أرض وشعب فلسطين في محاولة لتكريس الأمر الواقع وتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن من أجل تصفية هذه القضية العادلة. فقضية فلسطين تختلف عن كل قضايا المستعمرات والكيانات العنصرية وهي اقتلاع شعب من وطنه وإحلال شعب وكيان آخر في مكانه. xildhibaan cali jaamac jangali oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka qaybna ka ah wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shirka oo markii uu soo gabagaboobay kadib lagana soo saaray warmurtiyada ay ku xusan yihiin qodobada ka qaybgalayaasha shirka ay ku heshiiyeen waxa warbaahinta qaranka uu faahfaahiyay nuxurka qodobadii shirkan ka soo baxay. gudoomiyaha golaha shacbiga His Excellency Maxamed Mursal khudbad dheer buu ka jeediyay run ahaantii ahmiyadda ay leedahay qadiyadda Falastiin inay tahay qadiyadda weyn ee shucuubta Carbeed in loo baahan yahay xal caadil ah in loo helo Falastiin. qodobada muhiimka ah ee ka soo baxay bayaanka gudoomiyaasha baarlamaanka qaybta carabta ee midowga baarlamaanada adduunka waxa weeye qaybaha ugu muhiimsan inaan la aqbali karin heshiis cadaaladda ka fog Falastiiniintuna aysan raalli ka ahayn in xalku ku jiro wada hadallo dhaba si looga hortago hagardaamooyinka Israa'iil waxa lama huraan in Falastiintu ay heshiiyaan oo khilaafkooda xaliyaan. waxaana shirkan oo ah kii soddonaad aan caadi ahayn oo ay yeeshaan midowga baarlamaanada adduunka qaybtiisa carabta martigelisay dawladda tan Jordan waxaana looga hadlay xaaladda guud ee Falastiiniyiinta gaar ahaan heshiiskii qarniga ee dhawaan uu saxeexay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed.